shirkan jaraa'id oo galinkii dambe ee maanta ay ku qabteen magaalada Gaalkacyo hoggaanka sare ee beesha Habargidir oo muddooyinkii dambe ku sugnaa magaalada Gaalkacyo ayay kaga hadleen xaaladda siyaasadeed ee dawlad goboleedka Galmudug iyo kulan ay la qaateen madaxweyne Axmed Ducaale Geelle Xaaf oo ku sugan magaalada Gaalkacyo. xubnahan ka socday golaha sare ee hoggaaminta Habargidir ayaa sheegay in kulanka ay madaxweyne Xaaf ay la qaateen uu ku soo dhamaaday is-afgarad isla markaana ay isla meel dhigeen waxyaabaha ay ugu socdeen. golaha oo ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee ka taagan magaalada Dhuusamareeb ayaa sheegay in loo baahan yahay in si taxaddar leh looga qayb qaato dhismaha dawlad goboleedka Galmudug iyagoona dhinaca kale ugu baaqay dawladda Soomaaliya inay joojiso hawlaha maamul dhisidda ay ka wado magaalada Dhuusamareeb. Professor Cabdulqaadir Maxamed Shirwac gudoomiyaha golaha hoggaaminta Habargidir ayaa war-saxaafadeed ay soo saareen u aqriyay warbaahinta isagoo intaasi kadib la dardaarmay dhinacyada siyaasadda Galmudug ku lugta leh. warmurtiyad golaha hoggaaminta Habargidir bismillaahir rahmaanir rahiim. golaha hoggaaminta Habargidir waxay ahamiyadda koobaad siinayaan badbaadada bulshada deegaanka iyo daryeelka qadiyadda maamul u dhisidda dawlad goboleedka Galmudug. waxaana noo muuqata xilligan in doorashada ka socota Dhuusamareeb caasimadda dawlad goboleedka Galmudug uu hareeyay khilaaf xoogan oo ku salaysan habraaci maamul u sameynta dawladda cusub ee dawlad goboleedka Galmudug isla markaana aan u muuqan karin doorasho lagu dhisi karo dawlad loo aayo oo ka hana qaada deegaanka Galmudug. sidaa daraadeed waxaan soo jeedinaynaa in qodobadan hoos ku qoran siday u kala horeeyaan loo tixgeliyo. ugu horeyn waxaan ku boorinaynaa kuna adkaynaynaa dhammaan dhinacyada siyaasadeed ee ka qaybgelaya doorashada in ay hakiyaan inay joojiyaan horinta khilaafaadka kana shaqeeyaan sidii wada hadal wax loogu xallin lahaa. dawladda federaalka iyo guddoonka cusub ee baarlamaanka waxaan ka codsanaynaa inay hakiyaan horay u socodsiinta hawlaha maamul u dhisidda dawlad goboleedka Galmudug kana shaqeeyaan sidii xal loogu heli lahaa khilaafaadka taagan si loo helo jawi isfaham iyo wada shaqayn dhammaan dhinacyada siyaasadeed ee raali la iskaga yahay. waxaan ugu baaqaynaa beesha caalamka iyo deeq-bixiyaasha inaysan indhaha ka qabsan isla markaana ay ka qayb qaataan dadaalada loogu hortegayo khilaafaadka hareeyay habudhiskay ama dawlad goboleedka cusub sidii loo yegleeli lahaa ay ka qayb qaataan si deegaanka loogu helo maamul midaysan iyo xasilooni siyaasadeed. ugu dambeyntii waxgaradka reer Galmudug waxaan ugu baaqaynaa in masiirka iyo mustaqbalka Galmudug la badbaadiyo lagana wada shaqeeyo sidii wada hadal iyo isfaham loogu dhamayn lahaa khilaafaadkan taagan. wabillahi tawfiiq. sida la wada ogsoon yahay maalmahan guddiga golaha Habargidir ka socda waxay joogeen magaalada Gaalkacyo waxayna u joogeen khilaafaadka laftigiisa ee hadda xoogiis soo ifbaxay inay wax ka qabtaan oo xalinta ay qayb ka noqdaan. meel fiican bay arrintu noo maraysay bulshada iyo madaxweynihii dawlad goboleedka Galmudug mudane Axmed Geelle Xaaf waan is aragnay waana isla garanay inay ku habboon tahay in wax walbaba isfaham iyo nabad lagu dhameeyo. waxaan rabnaa inaan u sheegno qayb kasta ee arrimaha Galmudug taabanayso inay sidaa iyo si ka wanaagsan ay maskax miyir qabta wax lagu xalliyo ee aan caradu ka kormarin caqliga. admaasantii war-saxaafadeedkan ka soo baxay golaha hoggaaminta beesha Habargidir ayaa ku soo beegmaya xilli xaalad siyaasadeed oo cakiran ay ka taagan tahay magaalada Dhuusamareeb isla markaana rabitaanka dawladda iyo kooxda ahlu sunna ay iska hor yimaadeen. Saadaq Siciid Nuur, Galmudug TV, Gaalkacyo.